weli waxaan ku dhex jirnaa rabadaanteennii marka insha allah maantana maxay idiin sidaa balsacadiyo kooken. maanta waxaa idiin sidaa wax yar inaa idiin bayaaniyo. kan waa batiiq saa u taqaaniin, waa geedkaas gareyga ah, dhabarkiisa yahay garey. markuu saa camal qudaarta haddii isku kaa soo gaargaarto wax yar oo information aan siinaa walaalahay. haddaa is leedahay qudaartii kaa halaabin oo way isku kaa soo gaargaartay oo rabtid inaad maxaa la dhahaa ama shiidatid ama aa u cuntid maalinle, waxaa samayn kartaa inaad saan intaad jarjartid kaas dhexda ka bixisid, yaryaraysid bacdaas aa ujeedid. waxaa sameynaya intaad jarjartid aa ku aruurinay bacda meel laga xiray leedahay. marka bacdaas waxaa sameynaya insha allah waa ku xirxiray inta fruud aa is leedahay waa isticmaalaya maalinlaha. subaxii aa soo bixinay, markaa soo bixisid ama shiido ama si caadi sida u cuni jirto u cun. bacyaashan aa ku xirxiray. hadda for example oo kaleeto hadda kanaan rabaa inaan xirxiro, gooni aan u xirxiraa kan, markaas gooni dadka dhama wada cunaan. geedkan ani la cuno laakiin kuwo badan oo ciyaalka ay cunaana jiro oo dhaqso halaabayo. haddaa ida tusoo kale sida kan oo kale strawberrygan, haddaa ida tuso kan mooska oo kale fiira. hadda kan oo kale suu noqdo soo ujeediin, laakiin annagaa ugu talagalna kan saan inuu noqdo. waxaan rabnaa inaan ka shiidno asagii spinach iyo yoogada la isku shiidaa, waa lagu afurayaa. iyo waxaa halkaas ku jiro tufaaxyo kala duwan, midka cagaarka midka gaduudka. waxaa kaloo inoo yaala oo asagana dhaqso halaabo, afakaadhadoo kale cabaar way ooli kartaa. waxaa kaloo noo yaalo oon rabaa inaan idinla wadaago kan strawberryga oo kaleeto. saa ujeedaan wuu halaabaa dhaqsadiiba, asaga ma oolaayo waqti badan. haddaa rabtid waxaa sameynaya intaa afka ka jarjartid dhaqdid, afkaas ka gogoysid, waxaa ku xirxiri kartaa bacda hadda ayada tusay ood ku xirxiri kartaa sida afakaadhadoo kale. hadda tan oo kale afakaadhadan haddii aad kaaga bislaato kale, hadda tan weli ma bislaanin. haddii aad kaaga bislaato kale waxaa sameyn kartaa intaad lafta ka bixisid aad maqaarka korena ka bixisid, inta gudaha ku jirto aa bac ku xirxiri kartaa. waa xareyn kartaa sida tufaaxoo kale wuu ooli karaa waqti badan. kan annaga aada u isticmaalnaa, cabitaan ahaadana u shiidanaa. haddaan advice idinku siiyo, spinachkoo kale aada u fiican yahay. kamerada warwareejina raalli ka ahaada. kan oo kale waa organic, saa ujeedaan waa dabiici, waa sidii beerta uga soo go'day, ma la soo kiimikeenin. kiimik ma lagu soo sameyn, way ka qaalisantaa qudaarta kale, laakiin organic waayo waqti badan markama ooleysa maadaama lasoo kiimikeenin oo wixii waqtiga dheer uu ku ooli lahaa aan lagu soo sameynin. waxaas uu ooli karaa ugu yaraan ilaa iyo 3 maalmood 4 maalmood 5 maalmood. haddaa is leedahay maalin kasta ma isticmaalayso kale, asaga xataa intaa dhaqdid waxaa sameyn kartaa, waxaa ku shubaysaa bacyaashaas ku xirxire, barafkaa gashanay. hadhow markaa shiidanaysid, annagoo kale hadda qudaar ahaan waa shiidanaa inta badan kan spinachka. had korna waa idinla wadaaga cabitaan annagoo ka sameynayno oon ku shiidanayno yoogad iyo asaga iyo moos. marka annaga cabitaan ahaana u shiidanaa. marka waxaad sameyn kartiin haddaa kan organic aan soo gadatay waqti badan kuu oolaay, bacdan ku xirxiro fruitka. bacdan markaa ku xirxiratid sida tufaaxii oo kale wuu ooli karaa, mooskoo kale xoogaa asaga xataa wuu ku ooli karaa. haddaa rabtid inaad shiidatid mooskoo kale barafka waa gashan kartaa, laakiin haddaad shiidayn oo kale barafka uma fiicna mooska. marka maanta sheekadeena wuxuu ahaa fruutkaas iyo qudaarta oo la isticmaalayo sidii aa u xareysan lahayd ood waqti dheer uu kugu ooli lahaa isagoona kaa halaabin intaad daadin lahayd. marka intaas waqti badan aniga fruutka iyo qudaarta markay iga halowda qashinka ku shubaaye. laakiin hadda waxaan sameeyaa markay soo bislaataan arko oonan aan markaas iskaga kay daba imaato oo iskaga soo daba adeego, waa aragtay adeegii hadda wuxuu noqday saf, because dukaamada annaka safaa u galnaa, reer ingiriis waa ogyihiin. waxaa ku jiraysaa safka intaasoo saacadood aad taagnaanaya maadaama karoonihii dukaankiiba 10 qof camal loo sii daynaya halka mar.
markasta xiisa u qabaysa dukaanka inaa ku noqnoqoto marka waxaa suubinaya wax xadka ka baxsanaa soo aruursanaya kan qaado wiig aa ka maqnaata dukaanka 2 wiig aa ka maqnaata is leedahay kan qaado marka cuntadii aa kuu kor halaabaysa marka waxaa isiinaya talo walaalahi waa mahadsantihiin asalaamu calaykum aniga mar kale idinku soo noqday waxaan rabay inaan idinla wadaago waxaan isira walaalaha tus sidaa kusoo xirxirtay saa ujeedaan bacda horta marka hore waa dhaqay markaa dhaqay kadib waxaan kusoo shubay batiiqii oo jarjaray saa ujeedaan fiiri batiiqii oo soo dhaqay oo soo jarjaray waxaan idinkula wadaagay bacdaan ku guray cambahan oo kale hadda ma diyaar ma aha isaga hadda diyaar ma aha markuu diyaar noqdo haddii in case uu aad cuni weyso kale anaga wax badan ii yaalo wax badan aan soo gatay kor ii saaray meelaan ku xareeyay soo u bislaado marka hadda kale adeeg waaye laakiin markii uu istiraahdo uu bislaado kale timekiis waa la gaaray oo aad cuni weyso saacama inta jarjartid dhaqdid bacdaan oo kala soo gadanay waa dhaqay bacda naftirkeeda kadibna waa ku xirxiranay firijeerka barafka gashanay waa tartiibkaaga usoo baxsaneen suuna kaaga halaabin ooda u daadinin ani saasa waagi hor samayn jiray markuu iga halaabo iga bislaado aan ka gaari waayo waa daadin jiray laakiin hadda maadaama aan waqti dheer dukaamadii saf lagu jiraayo wixii wax badan iska soo gadanay marka maadaama wax badan aan iska soo gadanayo wixii kuu kor halaabaya marka intayna kuu kor halaabin dhaqaalahaagina aadan ugu ciyaarin lacagtaadii oo saa wax u seef garaysto ogtiin hadda Yurub dhibaatada ka taagan shaqo la'aanta guriga lagu xiran karoonaha dartiis marka dadki wax badan ma soo galaan dhaqaala badan ma soo galo shaqooyinka waa laga wada fadhiyaa marka lacagtiina saa u seef garaysan lahayd xataa dadka Soomaaliya joogo dadka Afrika joogo kulli waa la wada xayiran yahay isna Yurub kaliya Afrika Carabaha Soomaaliya kulli dad guriga lagu xiran yahay wax shaqo lama hayo lacag ma jirto dhaqaale ma jiro marka waxaan isir walaalaha maanta maxaa uga faa'iideysaa dadka Soomaaliya joogo kala wadan kuleel ay joogaan haddii hal mar wax badan soo adeegtaan oo kale saa camal sameeya haddii rabtiin Carabaha dadka jooga saa u jarjar kuwa iyagoo jarjaran oo bacyaal ku jiraan ana laga gadaa oo barafka ku jiro waxaana laga siiyaa maxaa la 3 baam iyagoo in yar ay ku jirto 3 baan laga siinaa marka batiiqan dhan halka xabaa wuxuu joogaa hadda 1 pound 1 pound markuu joogo meeqa mal wada isticmaali kartaa laakiin marka lagu soo jiro lagu soo fiiqo bac lagu soo geliyo barafka lagu soo geliyo dukaamada fiiriye fruitkan oo jarjaran oo barafka ku jira yaalo oo loogu talagalay in la shiito oo cabitaan ahaan loo shiito marka adiga samayso gurigaaga ku samayso saa camal u jarjaro bacyaashan soo gado ku xirxiro kadibna wax allaale wixii fruit ku yaalo isleeda waa ka halaabayaan ku aruuri xabad u soo baxso dhaqaalahaagina maasha Allah kuma ciyaarin israafna ma sameyn xagga allana dambi kama gelin adigana waxaaga waa seef garaysatay waxaa laga yaabaa 2 asbuuc soo socoto fruudida soo gadla inuu firijeerku kugu jiraba oo lacag badan aad seef garayso dukaanka aad ka baaqatay insha Allah intaas aad idinka faa'iideynay walaalahay waa mahadsantihiin jazakallahu khair idinkana subscribe-ka thumbs up-ka share-ka like-ka xaqiina waa kulli anakana wax kasta oo islee waxba ugu faa'iideynaa walaalaha waa idin soo bandhiga insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.